waxaa sii xoogeysanaya khilaafka u dhexeeya gudoomiyaha degmada Wallaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee degmadaasi. khilaafka labadan mas'uul ayaa sababay gacan ka hadal dhex maray labada ciidan oo ay kala hogaaminayaan kaasi oo maalin ka hor dhacay waxaana isrisaaseen ay dhex martay muddo 40 daqiiqo ah. Maxamed Siido Cabdiraxmaan gudoomiyaha degmada Wallaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ku eedeeyay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee degmadaasi Axmed Cabdullaahi Cabdi in maleeshiyada uu maamulo ay isbaara dhigteen deegaano ku xeeran degmada Wallaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose markii isku day ay doonayeen in ay ku qaadaanna ay iska caabin kala kulmeen ciidamo uu hogaaminayo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee degmadaasi. runtii waxa way shalay inta aan dhibaato ku dhiidi dhibaatadaas oo macna dadka shacabka ee degmada Wallaweyn dhan ku warqabaan sababta oo ka dhiidi in gudoomiye ku-xigeen arrimaha bulshada oo degmada Wallaweyn in uu isbaaro oo dhikidi sida dadka degmada Wallaweyn oo kiyaan meeli taraafikada la dhax jiray oo taraafikada lagu qaaday in uu isbaaro dhikidi shalay bil tumunga ay tageeg bil 12 waay ilaa hadda macna saacadahan si la hadlayo isbaaradii wili meeli antaal sifadaad intaalan xoog ismeel ka fidhiyay waa sifo oo maamulka koonfur galbeed amarsanayeen oo leen dhihi maamulka Soomaaliya ilaa oo maamulka Soomaaliya macna qofna meel insaanay sidaas ay hadda ka fidhiyay. gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Wallaweyn Axmed Cabdullaahi Cabdi ayaa sheegay in aysan jirin wax isbaara ah oo u yaala balse waxa uu tilmaamay in gudoomiyaha degmada ay u taalo isbaarooyin xiriirsan inta u dhaxaysa Afgooye iyo Wallaweyn waxaana uu codsaday in guddi xaqiiqo raadin ah oo baaritaan ku sameeya loo magacaabo si xaqiiqda jirta loo ogaado. way jiraan isbaarooyinka gobolka way jiraan waxa ugu daran meesha hadda baabuurta ay ka leexato oo la yiraahdo tabeelaha misri oo maamulka gudoomiyaha degmada u taala iyo meel la yiraahdo shilinta oo ka safayso ayadana u taala iyo meel la daawud guulo ayadana qayb kamid ah asaga u taalo oo isbaarooyinkaas iyo kuwa ka hirg yaalo dhamaantood gudoomiyaha degmada u yaalaan markii aan ka hadalnay oo maamulka aniga ahaan imid caqabadii koowaad aan la kulmay oo dadka deegaanka aan ka wareystay oo ganacsatadu ii sheegeen fadhigii koowaad aan ganacsatada yeelanay waxay eedda saarayeen ka daawanayeen isbaarooyinkaas. gudoomiyaha aad ka hadlayso waa gudoomiyaha degmada Maxamed Siido Cabdiraxmaan. gudoomiye ku-xigeenka ayaa tilmaamay in khilaafka kala dhaxeeya gudoomiyaha uu yimid ka gadaal markii uu kala hadlay in la qaado isbaarooyinka yaala inta u dhaxaysa Afgooye iyo Wallaweyn kuwaasi oo dhibaato ay ku qabaan dadka iyo gaadiidka isticmaala wadadaasi. waxay sarka ku haytaan khilaafka maamulka ee idinka dhaxeeya labadiina muxuu yahay? wuxuu yahay war gudoomiye isbaarooyinka degmada hadii adiga ku oolay saxaafada ka sheeg dadka la hadal isbaarooyinka dadka laga qaado intaas waxa naga dhaxeeyay. waa gartay cabashada weynaha iyo timid gudoomiye dadka way ka cabanayaan saaray ka cabanayaan malaa'ig ma tihid. Axmed Cabdullaahi Cabdi gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Wallaweyn oo Shabeelle la hadlay ayaa sheegay in weerar lagu soo qaaday kadibna uu iska difaacay ciidamadii soo weeraray isagoo tilmaamay in sidoo kale gurigiisa la weeraray. markaan degmada ka baxay oo maray meel bar caafimaadna waxa staafkii gudoomiyaha iyo gudoomiyuhu waa socdo oo degmada luuq ay ka baxeen anna suuqa weyn aan dhex maray wadada ii galay gudoomiyaha degmada waa la socday waxa la socday gudoomiyaha maaliyadda oo staaf u ah gudoomiyaha degmada oo staaf u yahay marka asaan la socday meeshii arqasri wala furay 40 daqiiqo ka socota meeshaad ka socotay ilaahay waa iga badbaadiyay markaasna waxa la weeraray gurigeyga waxa u dhow talisa kontraafrada u dhow ayagana iska caabin sameeyeen oo meesha kala eriyeen niman gurigeyga weeraro maleeshiyada ah. xildhibaan Idris Dhakhtar oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda cakiran ee ka taagan wadooyinka gobolka Shabeellada Hoose gaar ahaan wadada xiriirisa degmada Afgooye iyo sidoo kale degmada Wallaweyn. dadka rakaabka oo waxay soo raaci jireen baabuurta waa soo wareegin jireen dhinacaan ilaa Buulufulay Qoryooleysan Turturo saasa loo soo galay waxa wadadan waa go'day waxayna u go'san tahay dad maleeshiyad ah iyo shabaab ay u xiran tahay. waa maqleysi hadda baabuurtii raashinka u wadi magaalada Baydhabo gabi ahaan in la gubay kuwii xudur mar 7 baabuur la gubay mar 9 baabuur la gubay mar 11 baabuur la gubay waajid waxba ma galaan waa degmadii hay'adaha UN-ka ugu weyneed oo saldhig u ahayd waxay isku dayeen inay gaari dameere ay ku qaataan dameerkiina waa la dilayaa gaariga wixii saarnaan waa la gubaya hatta hadda habeen walba waa la soo weeraray. inta u dhaxaysa Afgooye iyo Wallaweyn waxa yaala tiro isbaarooyin ah oo mararka qaar xanibaad ku keena gaadiidka xamuulka
oo isaga kala goosha Afgooye iyo Wallaweyn iyadoo gaadiidka looga qaado lacago sharci darro ah. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho. ku xirnow IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. degso application-ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking.